Maalinnimadii Talaadada 27-kii bishii 11aad 2018 galabnimadii ayaan waxaan booqasho ku tegay magaalada Gobsho oo 18 kiiloomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Magaalada Gobsho marka aad soo gelaysid muuqaalkeeda waxaad moodaa magaalo aad iyo aad u weyn, waana magaalo dhawaan la aasaasay balse si aad u kobcaysa. waxaa loogu magac daray ceelkan oo sida la ii sheegay la dhisay 1945tii. magaalada Gobsho oo sida aad u jeedaanba ah magaalo iyadu isku darsatay dhinaca deegaanka miyiga oo ku habboon xoolo dhaqashada iyo sidoo kale magaalo muuqaalkeedu uu yahay mid dhismaysa oo ilaa iyo iminka ay ka dhisan yihiin guryo aad u fara badan oo isugu jira guryaha dhagaxa iyo guryaha sidoo kale iyaguna ka samaysan sandaqadaha. magaalada Gobsho waa magaalo runtii dhawaan la aasaasay balse u muuqata oo amaba ka waaweyn magaalooyin iyada ka horeeyay. waxayna magaaladu leedahay goob caafimaad oo iyada lagu daweeyo bukaanada. sidoo kale magaalada Gobsho waxaa iyadana ku yaal iskuul weyn oo waxbarasho oo caruurta ay wax ku bartaan. waxay magaaladu sidoo kale leedahay masaajid weyn oo lagu cibaadeysto oo isaguna dhammaan magaalada dadka ku nool ay halkaas salaada ku oogaan. magaalada waxaa jirta oo ay leedahay ceel weyn ama waxa loo yaqaano riiga oo xoolaha ay ka cabaan, kaasoo runtii muhiim u ah deegaanada dhul daaqsimeedka ee ku hareereysan, halkaas oo dadka reer miyiga ay marka ay abaarta tahay iyo doogaba ay halkaas u yimaadaan oo ay biyaha ka cabaan. marka ceelkaas waa ceel muhiim u ah magaalada marka la fiiriyo sida ay halkaasi xooluhu uga cabaan iyo dadkuba. magaaladu runtii waa magaalo kobcaysa, waxay leedahay marka aad dhex marisid jidad waaweyn oo ku habboon dhinaca deegaanka, oo waxaad arkaysaa inay u samaysan tahay sidii magaalooyinkii waaweynaa oo ay leedahay jidad waaweyn oo dhex mara magaalada oo u samaysan qaabkii magaalo ay lahaan jirtay. runtii waxaa la oran karaa magaalada Gobsho oo ku tallaabsatay horumar, dadkeeda ayaa waxay ku dadaaleen inay markaasi dhisaan oo ka yeelaan magaalo aada u wanaagsan oo leh baahiyihii ama adeegyadii asaasiga ahaa, hadday ahaan lahayd goobo caafimaad, iskuuladii iyo ceelkii biyaha oo runtii ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay magaaladu ku tiirsan tahay. magaaladu sidoo kale sidaan idiin sheegay waa dhul daaqsimeed, ma aha oo keliya deegaanka magaalanimo, daaqsintana way ku habboon tahay. habeenkaas halkaa ayaan runtii ku qaxweeyey oo aan kula qaxweeyey dadka reer Gobsho. waa Iimaan Cali Cabdi oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.